بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تفسيرك قرآنك أيام وضناه سورة البقرة. ما أنتم حنقرأنا تفسيرك آيات السديدات وإلهي سبحانه وتعالى كلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. آياتها soo socda ilaahay wuxuu kaga hadli doonaa dadka munaafiqiinta ah sifooyinkooda ilaahana barayo. ilaaha macallin noo ah, ilaahay oo run sheega ah ayaa wuxuu noo sheegayaa sifooyinkan haddaad aragto oo qof aad ku aragto qofkaasi waa munaafiq. marka hore casharkan kooban bisha ramadaanna waa ku jirnaa ee barakaysan oo aan rabno muslimiinta khaasatan soomaalida inay ka faa'iidaystaan. waxaan rabnaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka magan galno calaamaadka ama sifaadka munaafiqiinta labada noocba. munaafiq caqadi ayaa jiro iyo munaafiq oo ah camali. munaafiq caqadi waxaa loola jiraa xagga qalbiga iimaanka uu nifaaq ka galay. munaafiq camalin waxaa waaye dhaqanka xaggiisu ka galay. marka labadaba waa cudur oo khatar ah oo qofka ahlu naar ka dhigayo. laakiin midka hore qofka qaba naarta wuu galaa keliya ma ahan, wuu ku waarayaa weli meesha ugu hooseyso oo naarta iyadoon kala rooneen meesha ugu darnu ka gelayaa. oo ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka sheekeynayo qoladan wuxuu yidhi ina almunaafiqiina fi darki alasfal min annaar. munaafiqiinta waxay naarta ka gelayaan meesha ugu hooseyso oo ugu daran. waa gaalada way ka daryihiin. gaalka gaalnimadiisa waa caddahay, laakiin qofka munaafiqa ah ma kala garanaysa inuu muslim yahay inuu gaal yahay. aayaddan waa culus tahay. waxaan dul istaagaynaa daqiiqadaha soo socdo. casharka ku xigana aayadaha kale intaan gelin aayaddan wax badan aan dul istaaganaa, sababtoo ah in aan kala jejibinno waaye markaan macnaynay. wa min annaasi, wa min kelmadda luqadda carabiga asalka ah hawaaye waxaa waaye tabciidi waaye, macnaha ma tilmaamayso wax kulli ah qaar. wa min annaasi markuu ilaahay dhahay dadka waxaa ka mid ah. naas waxaa waaye jamaaca waa waxaa ka mid ah luqadda carabiga. marka aad baranaysid kelmadaha la dhahayo waaye mufrad ma lahan. hadda oo kale markaad muslim waa hal muslim, markii la badiyana almuslimuun u noqonaa, markay haween tahayna almuslimaat. marka kelmadda asalkeed mufrad ay leedahay, laakiin kelmadda naas mufrad ma laha. kelmadaha luqadda carabiga oo culummada luqadda carabiga ku takhasustay dhahda ma lahan kelmaddan mufrad. marka jamaaca tilmaamaysaa. marka jamaacada dadka wa min annaasi, min waxaa ka mid ah waay annaas dadkii waxaa ka mid ah dadkii guud. marka halkan dadkii guud waxaa soo gelayo gaaladii, muslimiintii ama mu'miniin dheh, dadkii oo dhan saddexaa loo qeybiy. marka laa fiirso qur'aanka suurat albaqara ama qur'aanka dadka guud ahaan saddexaa loo qeybinaya. qeybta oo mu'miniinta waa kasoo hadalnay. qeybtaas haddana sii kala baxbaxo. mu'miniinta lebelo kala leh. iyo hadda waxaan soo ku xignay markaasi markii mu'miniinta aan soo barin haddana munaafiqiinta laba ayada lagu soo koobay. ina aladiina kafaruu sawaaءun calayhim a andartahum am lam tundirhum laa yu'minuun khatama allahu calaa quluubihim wacalaa samcihim wacalaa absaarihim gishaawa walahum cadaabun cadiim. labadaasaa lagu soo koobay. waa gaalada waay. qofka adduunka maanta dadka ku nool ama waa mu'min ilaahay rumaysan, waa 5tii aayadood ugu horeysa suurat albaqara, ama labada aayadood oo hadda aan soo qaadanay usbuuc ka hor ama maalmo ka hor oo ah gaalada calaamadahooda. qofku imaa waa mu'min ama waa gaal ama waa munaafiq. saddexaas midkood waa. mu'minkiia marka kala sareeyo. waa ka sheekeyn doonaa mar kale, waana ka soo sheekeennay ilaa qofka uu gaaro darajada awliyaa'ullah oo ah darajo ambiyada ka hooseyso laakiin dadka kale ka sareyso. qofka awliyo markuu noqdo hawaaye ilaahay ayaa wuxuu la noqday saaxiib khaas ah. ilaaha ka warhaya waaye umuurihiisa
وقف توفيق الله وافجنايا وقف إلهي أدو عبادي سؤال بضن درتها وعبادة بدنيها وذكر بدنيها وإخلاص بدنيها قلبي سوى طاهر نجيه سوى طاهر إليه سوى طاهر عربي سوى طاهر عليه سوى طاهر مشو آذايا قعمي سوى طاهر روحو تابنايا وأستريح درجات أسرة سوى درجوين كمقامات ذكر الليهن كتبه وحاجرة منهاج القاصدين إيو كتبه كوضا حضلايا ماركتي قلوبت إيه dadka si u kala sareeyaan mu'miniinta waxa ku soo haray gaalada iyagana kala qaybsan oo qaybo kala duwan ah marka iyadana waa ka soo sheekeynay markii aan ka sheekeynay in alladina kafaru gaal oo kufrinimadiisu ee maaragtay uu ku dhashay ku dhamaysanay fi cilmi ilaahay suu og yahay iyo gaal hadduu fursad helo oo dacwada uu ku maqlo diinta uu soo galayo markaas wuxuu noqonaa markaasi mu'minkii uu soo galaa laakiin mu'minkii uu soo aadaya laakiin gaal ahaan marka la yiraahdo gaaladii iyagana kala leh tartiibaad gaalada laftigooda kala daran oo kala duwan markaas kadib qaybta saddexaad darsiga intaan la gelin qisooyin reer bani Israa'iil laga soo sheekeen doono oo duruus la rabo muslimiinta inay ka qaataan aan ummadda nabi maxamed inay ka qaataan ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu na barayaa yaa munaafiq marka munaafiq تفسيرك كلمة أو نفق أما حتى علماء قاركوذا يربوع حيوان ليرهذا كتل مامين إن كلمة داسي لمعنى إتها وحيوان قدود بدن سميسته marka meeshu ka soo baxay ma ogid waa ku wareerinaya qofku munaafiq asaasoo kala waa wajiib badan yahay meel lagu soo hagaaga malaha qof ku wareerinaya waa sifooyin khatar ah qofka inuu lahaado markasta waxa laga duceystaa waxa la yiraahdaa ilaahu waxaan ka magan galay in aan kamid noqdo munaafiqiinta taasoo lagu duceystaa اللهم إني أعوذ بك من أن أكون من المنافقين إله أذان كمان قالي منافق إذا مركل لبن نوع الله كلا قيبية نوع وحوى منافق عقد يحلو رجل العقيدة هان كاسو كان قطر صنواي ورتسلان مدي وموجينا يا لكن قلبك قالوا كيا سومالي ذا مقعي وبحيان أوركو قال أنا ها لكن وحو قانا يا ملا صبت صلاة يقول تكنا كوفيدو كل حرين هاي قميسكو وطا قرو ليه هاي قميسكو وقابين هاي لكن وقال وأوينا أصحاب مركو تكنايو قرآنك وأخرنايا وقت النبي النولايين كدب النولايين حد النوليهين مسلمين تكون حجران مركا لكن علماء وحيدهان ما دام ظاهرك موجينايان تهي إسلام أما إسلام نما موجينايان نعاملهم كالمؤمن أنا رسولك ساسو كل تعامل جري إلا وحكا صوبحان أما إلا لهلو حقائق iyo maaragta cadeymo oo sugan in qofkan uu gaal yahay oo munaafiq gaaleed uu yahay laguma degdegayo laakiin markastaba qaacida jirta nahnu nahkumu adh-dhawahir wallahu yatawalla as-sara'ir qaacidadaas waxa waaye anaga dadka waxaan ku aragnaa ku xukumayna laakiin waxa aanan arkeenin oo ilaahay kaliya uu arkayo anaga dakhligeena ma ahan shaqadeena ma ahan awoodina way ka baxsantahay ilaahay al-alim waa wax walba uu og yahay ilaahay waxa aliimun ma fi sudur waxa laabta ku qarsan ilaahay uu og yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa al-khabir guntu og yahay marka ayadan waa ayad adculus ومن الناس dadki waxa kamid ah man koox ama man qof yaqulu ku dhahayo ana muxuu dhahayaa amanna billah waxay leeyihiin fiiri ama koox waa hada sida kelmadda jamaaca u hadlaysaa dadkii waxaa kamid ah man dad ama koox dhahayo yaqulu maxay dhahayaan amanna billah amanna waa rumaynay billah ilaahan rumaynay carabki saasay kala yihiin wa bilyawmi al-aakhir maalinta qiyaamahana waa rumaynay waa lixdii tiir oo iimaan labadii ugu waaweyneed ee dhaxan culimada labadana ugu waaweyn lixdaba waa waaweyn yihiin oo midna lagama tegi karo laakiin labadii oo lixdii laba kamid oo waaweyneeday dhaxayaan ilaahna waa rumaysanahay qofku dhaa ilaah waa rumaysanahay aakhirana waa rumaysanahay janno iyo naar inay jirto ilaahay markuu kashifay wuxuu dhahay wamaa hum
بمؤمنين وما هم إياغا معهم بمؤمنين كوا رميسا إلهنا ما رميسنا آخرنا ما رميسنا marka halkan mushkilad halkan ka dhalanaysa seen ku ogaan karnaa marka hore waxaan rabaa inaan kala qaybiyo munaafiqiinta laba loo kala qaybiyo qaar waxa aqadi waxa loo jeedaa uurku gaalku Soomaalida dhahan qalbigu gaalka yahay laakiin sida aayada ay tilmaamayso ma ogaan kartid ilaahay waa rumaysan ku dhaha aakhir waa rumaysan ku dhahaya laakiin qalbiga gaalku yahay waxa uu maleegayaa wuxuu ka shaqeynayaa islaamka iyo muslimiinta sida loo dumin lahaa shaqadiisu ugu weyn taas waa wuxuu u soo galayba islaamka oo uu gaalnimada u qarsanay waxa islaamka inuu burburiyo waqtigii oo Madiina la soo galay munaafiqiinta markaas aad u badnaayeen marka la joogay majority gaalay ahaayeen meelaha gaalada majority-ga ah munaafiqiintu ku yireen sababtoo gaalnimada furan qofka uu gaaloobi kara laakiin منافق قيبت لبعض حواي منافق عملي وحلو جيدا لقن كقفك لقن النفاق رسولك عليه الصلاة والسلام حديث وحاجر النبي عليه الصلاة والسلام ودحي علامات مركو كهل علاماتها النفاق ودحي إذا حدث الكذب مركو شكان أيو مركز تبين وشيء جايا وحكم إذا علاماتها هدو بلان وقلو إذا وعد أخلف بلان توكبح يا مركز بلان ملح dadkan xitaa mas'uuliyiin lagama dhigan karo macnaa madax ma noqon karaan dadka noocan oo kale okay haddii wax lagu amaanaystana tumina khana uu khiyaameynaya amaanada mas'uuliyad dowladnimo ha ahaato mas'uuliyad xildhibaannimo ha ahaato mas'uuliyad wasiirnimo ha ahaato mas'uuliyad guri aabba ahaan ha ahaato mas'uuliyad hooyo ha ahaato ilaa mas'uuliyad ugu hooseyso haddii wax lagu aamino uu khiyaameynaya وإذا خاصم مركو دودايو أو ضد اعتماده فاجر ونقنا معنا دينتو كبحايا أما دينتا كبحيتان كيدو كدوانايا سوى الدنيه سفير صنايا مركا علامتها سوى علامتها منافقة ولي منافقة عملية هواك منافقة لغنكا أو حالك يابا قلبك ولي إن إيمان كوهري قفكاس لكن ما دام قلبك إيمان وكهري لكن وحا إيمان كيس هو ضعيف وحانا تصنع الضعيف هاي وبين بدن هاي وخيانة بدن هاي إيوه بين بدنان خيانة أو معركة دي وحلول يبتو إيوه معركة مركي ودود بدن لكن دود يسو حكينيسا إن عقيديسا أما فساد إنو لنعيسا آذو مركي إنت أصلا كسو كوبا يا عشركة وسي وذينا هدو إلهي راضى آيات داني معن هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.